إن كان بلوغو talagalay in uu meesha uu isku dilo sababtoo ah saldhiga musqul baa ku taalay sababta musqusha loo geey waayay oo musqushaas loo geeyay maxay tahay sheeko aad isla ogeedeen waayay misna xogaa yar adiga la luush meesha uu ka dhacay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا مال والبقى جوتان واحد leeyahay bash barwaaqo cimri dheer iyo cibaado suuban allahna wada siiyo dhamaanteena mar walbo waxaan jeclahay wixii soo kordha in idin sheego waad la socotaan mar hore waxaan soo saarnay amaba aan soo gelinay Salman Khan gurigiisa in lagu weeraray oo ah qisas socoto ilaa ay haddana la isku haysto oo qisadii hore ba qisas soo dhaaf وحساسي بدل مركا وحان اسيري بل اصحابتا كدبجي وايه وان गुदगेलेना गिरफ्तार किया था अब उन्हें बंदूक डिलीवरी करने वाले दो आरोपियों को भी पंजाब से गिरफ्तार किया है आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था जिनका नाम है सोनू सुभाष चंदर और अनुज थापर कोर्ट ने यहां पर बात है اصحابي ان markii guriga Salman Khan la weeraray booliska talaabo ay qaadeen dabagalka talaabay qaadeen si lagu ogaado dadka weerarkaas ka dambeeyay waa idin sheegay mar hore laba qofood lagu qabtay midkana waa mid hubka loo soo dhiibay oo meesha lagu weeraray midna waa midka mootada waday waa tahay labadooda gacanta ayaa lagu dhigay balse booliska markii ay gacanta ku dhigeen baarisa lagu waday midka hubka soo gudbiyay asagoo baaristaas lagu waday ayaa si lama filaana waxa u dhacday lagu yiri in asaga uu codsaday in uu musqul aado musqushii markuu aaday askariya banaanka taagan musqushii loo ogolaaday ilaa musqushii waxaba ku diyaarsanaa xarkii ayuu isku soo lalmiyay ninkan xarkii ayuu isku soo lalmiyay isla waqti ahaantaas booliska waxay dareemeen in ninkan wax uu sameynayay markii albaabka la jibiyayna ninkan oo jaraynayo xerigii oo isku soo lalmiyay ayaa la qabtay nafta kama aysan bixin laakiin dil asaga naftiisa inuu isdilo ayuu maaganaa laakiin nasiib wanaag ninkii markii la qaaday intuusan isbitaalka ay la geenin ba ama isbitaalka la gaarin ayuu nafbaxay wuu dhintay marka dacwad kale ayaa ku soo oogantay sababtoo ah musqusha asaga uu macnaa uu galay ama ba la geeyay ma ahan musqusha saldhiga ku taxtaal waa musqul kale marka wariyaasha markii ay fiiriyeen wararka qaar ah waxay ay soo saareen in ninkan baloogu talagalay in uu meesha uu isku dilo sababtoo ah saldhiga musqul baa ku taalay sababta musqusha loo geey waayay oo musqushaas loo geeyay maxay tahay sheeko aad isla ogeedeen waayay misna xogaa yar adiga la luush meesha uu ka dhacay waxa la sheegayaa taliyaha saldhiga isla waqti xaadirkan asaga naftirkiisa in uu xiran yahay iyo askarta hoos joogadiisa asaga la shaqeynaysay marka falkaas uu dhacay waana sax qofkan hadii uu xiran yahay waa in la ilaaliyaa waana in macna ma ahan kiis ciyaar waa kiis weerar ah marka afukaataha Salman Khan qaaska u ah ayaa wuxuu leeyahay arintan waa arin laga soo shaqeeyay waa arin la rabo in kiiskan sidan lagu baabi'iyo balse kiiskan sidan kuma baaba'ayo Salman Khan iyo cidiisa guriga waa ay ka qaxeen mana ah waqtiga ugu horeysay kaliya la soo weeraray Salman Khan waa markii labaad ninkan hadda la sheegayo oo hubka iska dhaaf midkii isdilay ninka hubka soo dhiibay oo u dhaaran jiray wariyaha ah oo yiri Salman Khan waan ku dili doonaa ayaaba asaga hadda gacanta lagu dhigay asagana markii la kulleeyay waxa uu sheegay laba naag oo la hor joogto oo ayagana ka dambeeyeen in hubkaas la soo dhiibo misna Salman Khan lagu weeraro cadawtinimada ay u hayaan ilaa hadda aysan sheegin misna hooshaas ayaga lugta ku leh laba naag oo la soo qabtay mid isdilay iyo mid hadda gacanta lagu hayo iyo midka sheekadan abaabulay in la weeraro Salman Khan oo lacag ku bixiyay iyo labada naag ayaa hadda maxkamadda
ay rabtaa in ay macnaha soo bandhigto amaba ay soo saarto ugu horeen laakiin waa in macnaha la helaa warar lagu kalsoonaan karo oo ah ninkan asaga shakhsi ahaantiisa intuu hubka ka keenay naagahaasi ay soo dhiibeen hubka misna ninkan hadda isdilay u soo dhiibeen iyo filinkan meesha uu ka socdo waxaa lagu yiri ma aha mid 4 qofood ilaa 5 qofood lagu eedeyn karo dad waxaa jira weliba ka tirsan siyaasiyiinta India ah Salman Khan ku kacsan oo ayaga xataa in ay ku lug leeyihiin laga yaabaa laakiin weli ma aysan soo shaacinin maxkamadda waxay ku jirtaa baaritaanka siiba waxaa la haystaa hadda ninka iyo labada gabdho oo aayeen ninka amarka bixiyay iyo kuwa hubka soo dhiibay kan hubka keenay meesha wiilasha u dhiibana wuuba isdilayba kiiska wuu u sii ballaartay aanu yiri maxkamadda markii hore waxay ahayd maxkamad madani ah oo jirto macnaha in hadda kiiskii uu gudbiyaa lagu dhahay wuxuu sii gudbay maxkamadda sare waliba Salman Khan ayaa mar lagu azumay in warkaasi asaga ayaa warbixinta wuxuu ku sheegay ninkan hadda gacanta lagu dhigay oo u dhaartay mar hore in cadaabad soo jireen ah uu hayo oo hadduu sheegi waayo dadka ka dambeeyaan oo asaga macnaha haddii aan u dhinto xataa weerar kale loo soo qaado in ninkan dadkiisa iyo dadka ka dambeeyeen siyaasiyiinta la sheegay in ay yihiin marka Salman Khan maxaa u furan Salman Khan hadda maxkamadda waa ay fasaxday kulli waxay tiri wadanka amaba sii joogi kartid adiga intii baaritaankan iyo waxaan lagu jiro adiga iyo familkaaga waa in aad wadanka ka sii dhooftaan Salman Khan walow uu diiday balse waalidkiisa ayaa ku xukmay ayagoo dhan in ay dhaxaan xataa meesha ay aadayeen lama cayimin laakiin dalka India in ay ka baxaan oo kaliya ayaa la sheegay weli ma la sheegin wadankaas ay aadeen ama meeshaas ay aadeen lama sheegin Salman Khan asigoo diidan ayaa aabihiisa wuxuu ku amray Salim Khan in ay meeshan ka tagaan ilaa iyo kiiskan uu ka soo cadaado amaba booliska qof sugan ay gacanta ku soo dhigaan si uusan kiiska u sii ballaaranin amaba weerar kale uusan dhicin gaadma ah sidaas darteeda Salman Khan ay cidiisa la fasaxay marka maxkamadda hadda waxay u joogtaa labada gabdhood iyo ninkan in ay ka soo saaraan waxay u dirtay weliba guddi xeer hoosaad ah ayaa leh oo macna aansan ku jirin dabagalka iyo booliska dad hoose oo lagu kalsoon yahay in ay warkaas keeni karaan waa dadka kaliya dhaheen dad waxaa jiro oo siyaasadda India ku lug leh Salman Khan in la weeraro misla meesha lagu dilo dadkaasna inay soo saari karaan waxaa loo qabtay ilaa iyo bishan dhamaadkeeda in ay soo saaraan dadka ka dambeeyaan haddii la soo saari waaye dadkan xukunkooda wuxuu noqon doono waan arkaynaa iyo weliba markaas Salman Khan maxkamadda loogu yeeri doono iyo wixii cadeemo ah meesha weliba waxaa la yiri CC kaamirada wax badan ayaa hadda macnaha la sii baaray la daba galay wax badan lagu ogaaday weliba warkaas ba la shaacinin laakiin waxay sheegeen warar muhiim ah iyo dad muhiim ah inay ka arkeen CCTV kaamirada oo qarsoon ama meelaha ku dhagan weliba waxaa lagu leeyahay dad waxaa jira aan xataa sanadooda aan ka badnayn 14 ilaa 15 waa wiilal yar yar oo lagu soo dalbay ugu horeen ayaga meeshii ay tageen ilaalada iyo wixii oo dhan siday u kala yihiin warbixintaas sheegeen CC kaamirada in laga helay marka maxkamadda waxay go'aamisay Salman Khan iyo waalidkiisa in ay ka tagaan meesha okay muxuu noqon doonaa marka ninka far soo taagan noqday waa ninka lagu magacaabo Arbaz Khan walow Arbaz Khan asaga naftiisa Salman Khan sanahan dambe asaga xiriir aad u weyn oo san ka dhaxeyn walaaltinimada ay jirtay xirguf yar ay soo dhaafeen filimka daban kadib asagana yiri macnaha nin dadka walaalkayga soo weerareen hadiisan maxkamadda ku qaadin xukunka saxda ah talaabo gaar ah in aan qaadi doono Arbaz Khan horta wuxuu ku jiraa dadka macnaha siyaasiyiinta qaar India laga dambeeyo oo madaxda garabka siiya xisbiyaalka misna lacagta bixiyo waxaa marka laga baqayaa markii maxkamadda dadkan amaba wax ay ku weyso cadeema caadi ah in uu Arbaz Khan talaabadaas qaadi doono asagoo kaashanayo 3 xisbi ka dhisan dalka India ugu waaweyn xisbiyaal badan ka dhisan laakiin xisbiyada asaga uu taageero oo misna wax uu siiyo
ayaa laga baqayaa tallaabo inay qaadaan arrintaasna in ay sii weynaato marka Salmaan Khan waxaa loo yeeri doonaa markii ay maxkamadda dadkan ay u yeerto ayagana la soo saari doono ayaa Salmaan Khan la wacaya asaga iyo familkiisa weliba marka wixii natiijo ah ka soo baxana sidaas oo kale waa idin soo bandhigaya asxaabay nabadiino